السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada habeen cusub iyo waan isku fikram waxaan rabaa inaan su'aal rabaa inaan ka jawaabo oo aabe soo weydiiye so last I guess saddexda video soo dhaafay waxaa ka hadalnay caruurta iyo waalidkooda cilaaqada ka dhexeyso so aaba wuxuu isoo qoray inuu markuu yaraay waxa aabihiisa ahayn jiray nin canaan badan oo qaylo badan so uu ka cabsan jiray heer wuxuu gaaray inuu ka cabsado aabihiisa oo wuxuu keenay marka kastoo soo weynaada inuu aabihii u googooyo so aabaa hadda masalan soo fadhiista inuu qolka galo hadduu qolka aabihii aado inuu cunugii wuxuu bilaabay inuu aabihii u googooyo hadda wuxuu dhahay markaan weynaaday oo aan noqday aabe waxaan arkaa inaan qaylo badanahay oo ilmaha aad iyo aad aan u xanaanto waana ogahay dhibaatadii oo ani aabahey qayladiisa ii geysatay iyo inuu xiriirkeena fiicneen ani aabahey because wuu qaylo badnaay waana ka cabsan jiray waxaan ka cabsanaa ilmahayga inay ana inacaan hadhowti markay xoogaas oo roonaadaan ay googooyaan sidii ani aabahey ugu gooy jiray first of all waxaan rabaa inaan u sheego waxa waaye walaalkeena waxaa qofka inuu qaladkiisa qarto so ada hadda maasha allah congratulations because hera waxaa taagan tahay waa ogahay aad dhahoosaa dhibka qayladayda dhibka ay keeni karto iyo hadhowta dhibaatada ay soo gaari karto so that's good because ma fiicana taagan tahay hadda qadqada koowaad oo soo gasay because wax qirata in qayladanayda ay fiicnaan oo hadhowti xiriirkaaga aad iyo caruurtaada ay xumeyn karto so midda kale waxa waaye marka maxaan ka qaban karaa so bini'aadanka horta qaylada dadka ma iska qayliyaan sababa usoo keenta qaylada midda kale anaga markii oo qaybta oo mental healthiga aan u fiirinayn dhinaca maskaxda waxaan dhahnaa xanaaqa waxa waaye wax oo secondary emotion la dhaho soo dareen labaad waaye intii qofka xanaaqin dareena ka horeeyo ee dareemayso qofka so it's very important inaad ogaatid intaadan xanaaqin maxaa dareensaneed before xanaaqa because xanaaqa waxa waaye again sida aan ahnay secondary emotion waxa waaye dareen labaad dareenka koowaad muxuu yahay so dareen koowaad wuxuu noqon karaa madaalan tahay madaalneed markaa xanaaqaysa soo adoo shaqo ka imaada oo daalan oo isku soo baraysan ama ilmihii masalan qayla ama ay qalad galeen markii aad imaadeen baahimaa ku haysa waqtigaa qaylinaysa markii intaadan qaylinin ka hor masalan walwal maa kugu jiro wax oo ku walwalinayo oo maskaxdaada busy ka dhigayo maa kugu jiro wax baahida daalka walwalka xanuun haddaan qabno waxaas dhan waxa waaye primary emotion maxnaa soo dareen koobaad waaye dareenkaasayta kadib wuxuu imaadaa dareenka labaad mid xanaaqa iyo qaylada so koodi marka ogaa maxaa waaye waxa oo intaadan xanaaqin maxaa waaye dareenka koobaad muxuu ahaa marka haddii oo marka daal camal ay tahay ama daalkaaga marka maxaa soo fikirta marka imaadid inaa ilmaha dhahdid okay an hour kadib adin la dilgareeha mawduucan inta hadda meel loo dhigo waa idin soo noqonaa can you maybe nab inaa qaadid marka imaadid si isla markii ilmaha oo la dhaqmin oo la dilgareynin because taas inta waxay close gareyn kartaa qayl iyo xanaaq iyo sabar la'aan of course because sabar la'aanta waay man we all know yani diinayan xataa waxaan dhahnaa xanaaqa shaydaan oo ka imaada rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahaa markii aa xanaaqsan tahay positionkaaga bedel so masalan haddaa taagneyd oo ilmaha kugu buuqeen fariiso ama position ka tag meesha ka soco qolkaaga gal or something so maybe waxyaabahaas aad samayn kartaa soo ogaa horta maxaa waaye wax ku dhibaaya intii aadan xanaaqin markaasayta maxaa ka qaban kartaa xanaaqa waxaas koobaad wuxuu ahaa badaal ama gaajo ama walwal oo ama stress oo shaqada ku saabsan ama guriga ku saabsan ama xaaskina oo xanaaqsaneed oo ilmaha kusoo qarbaxoosid waxaas dhan waana suubinaa waalidiinta dhan waa suubiyaan how aday aabaha wax isku qabsahaayaan ilmaha lagu qaylahaa zambigood maya masaakiinta ilaha laga cabsado so taas koodi fiiri ee xaday midda kale ogaa shaydaana qofka riixaayo si uu xanaaqo oo carada u burburiyo sacuudi bilayso ka tag meeshaasayta fariiso haddaa taagan tahay dhaqdhaqo weysayso ilmahane badan always dheh waxaa hadhowan ka hadlaynaa haddii oo aad dareentid inay xanaaqi rabtid oo waxaaneta ay kugu dhibooyiin okay hadhowan ka hadli karnaa dheh can we talk about it nus sac kadib hal sac kadib waqti sii mawduucaas usoo noqon kartid adoo calm mamar waxaa jirta ilmaha oo especially ilmaha hadda maasha allah wadankaa lagu koriye muran iyo waxay kula soo istaagayaan waxay dhahaan kelmada negotiation
so marmar waalidaan nahay waa daalanahay madaxeen waxyaaba badanaa ku jiraan xoog ma u haana ama maskaxdeena ma adkaysan karto negotiationkaaseeto so waxaa dhihi kartaa okay ani hadda meel isla gaarayni because ana waa daalanahay adigana wax ma maqloosid hadhow waan ka hadli doonaa insha allah so halahaasayta kusoo ekeysiha ade waa halaha waxa waaye isku day inaa awdabilisid sida meesha ka socod ilmaha yani iska qaboojisid an eres run waaye xanaaqa ilmaha way markii lagu qayqayliyo wax badan oo canaanka laga badiyo waxay keenaa inay cabsadaan way keenaa inay ku gooyaan waxay keenayaan inay ka dhuntaan cilaaqana malaha haysan wax waligood ku sheegayaan because waxay ka cabsanayaan inay ku qaylisid anadoo qaylinaynin waxay iska filanayaan inay qaylihaysid xataa so alxamdulilah calaa kulli shay waxaa fiican qofka inay ogaato qaladkiisa iyo limitationkiisa mida kalena markayba dhacda inaa qaylisid ilmahaaga la hadal ee iga raali ahaa ceeb ma aha waalid inuu raali ahaa cunugiisa dhaho waxa waaye waa ku weynehaysaa because cunugan wuxuu baranaa qofka hadday qalada ay gafto inay raali ahaa dhahdo cunugeeda so cunug raali ahaa dheh waa xanaas waa daalnaaya ama waqti fiican ma ahayn aan isla hadalno next time asxaan suubi markii shaqada ka imaado hore qayla waxaa keeneen mashaakilkaaga waxaan ka hadli karnaa casar kadib whatever aragtid inay dhehdeed insha allah waxaan rajeynaa inaan su-aashaada ka jawaabay waa intaas ii nabadgelyo iyo wala socday karam asalaamu calaykum